xukunkii aad ku xukunto ayaa lagu xukumi doonaa qiyaastii aad qiyaastana waa lagu qiyaasi doonaa waxaan mar kale difaacaynaa gabdhaha Soomaaliyeed sharaftooda sidaas oo kale waxaan saxaynaa mar labaad aabayaasha Soomaaliyeed wiilasha Soomaaliyeed waxaan mar kale difaacaynaa gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed iyo carruurta Soomaaliyeed fadlan haddii aad taageeraysid welcome oo subscribe-ta inagu taageer halkan waxaa inoo saaran gabar qaali ah oo u tartantay quruxda adduunka oo asalkeedu Soomaali yahay waa Soomaaliyeed magaceeda waxaa la yiraahdaa Iqra Butros I don't know Butros abeedeen loo laakiin Iqra waa la yiraahdaa haddaba gabadhan maalmahan waa laga hadlay annagu laakiin si ka duwan ayaan wax ugu sheegi doonaa oo sida Soomaalidu ay u hadlaysay si ka duwan iyo meel ka duwan baan wax ka tusi doonaa runtii waana difaaci doonaa gabadhan haddaba muxuu yahay waxa ka duwan aan halkan ku hayno waxa halkan aan ku hayno ma ahan gabadhan iyo waxa dhex maray dhalinyarada YouTube-leyda ma wax ka weyn baan halkan ku haynaa wax ka weyn oo bulshada Soomaaliyeed ay isku baraarugsaneen ayaan halkan ku haynaa waana sababta markasta aan fiidiyoyaasha usoo sameeyay in aan idin soo bandhigo waxyaabo dadku aan u muuqan oo ah inaan wada aragno waxna ka qabano runtii gabadhan Soomaaliyeed Iqra waxaan ku baranay wiilka la yiraahdo magaciisa Qays Qaysar waxaan malaynayaa hadda aad baad u xasuusateen kuwiina aan xasuusnayna bal fiidiyoyaasheeda kamid ah oo ayadii Qays Qaysar ah balaan intusno friends ane ma waxay ka dhigan tahay in inagu xayawaanka connection la leenahay yeah that's a good thing xayawaanka waa maxal dhaha national park waa soo degi kartiin ana le maadaama waa xayawaanka saaxiibiyaal la tiin dadka kale way ka yaaceen dadka ordayeen dadka kale laakiin anaga ina dad fiican neesasaa lagu garanaa waxaan u malaynayaa waad aragteen gabadhan iyo wejigo wiilkan Qays Qaysar iyo walaasheen hadda xusuusteena inay kusoo dhacday inay xiriir wada lahaayeen hadda koor waxay lahaayeen xiriir jacayl oo ummadda Soomaaliyeed xiriirka jacaylku intuu soo dhaafay ayaga iyo ummadii ogaatay hadda maanta ma garanaysaan aniga qofka xiriirka la dhaxeeyo laakiin haddii uu idin soo gaaro waad garan doontaan soo marka gabadhan iyo wiilkan waxay lahaayeen xiriirkooda ayaga wuu dhaafay ummadii u gaaray maxaa dhacay marka hadegdegin anaa ku tusaya waxa Soomaalidu ay ku tusin ayaan ku tusayaa waxaa dhacay wiilkan inuu gabadhan inkiray inuu jacaylka uga baxay inuu yiri walaalay ani hadda jacayl uma soo jeediyo reer jacaylka uga baxay iyadoo jacayl waliba gabadhan maxay sameeyay marka asla fiirina gabadhan marka arrinkaas ku dhacay oo ay qalbi jabtay video ka horeeyay waxaan ku sheegay gabdhaha Soomaaliyeed inay guursadaan dad ajaanib ah waxa mas'uul ka ah wiilasha Soomaaliyeed inaan ku yiri waan jecel tan waa mid kale oo cadeyn karo kamid ah waxaan tusi doonaa video gabadhaas markay qalbi jabtay ninkaas uu jacaylkii macnaha oo ma bixi oo uga bax lama dhihi kare uu iska tagay sida aabayaasha kale uu iska tagay xurmadii ay gabadhan iyo xushmadii iyo qiimeyntii ay lahayd uu iskala dhumay gabadhan oo gabar sharaf leh gabar uu tartantay quruxda maaragtay adduunka ah Soomaaliyeed ah quruxdaas miiran ah markuu iska dhumay ninkii ay jeclaatay uu iska dhumay ilaa waa kuwan aabayaashan iska dhumayaba waa asagoo kale kuwan hadda iska dhumayo oo meelaha qashin ku cunay oo ilmayaashooda maalinta la qaadanaya qaarna badda ku dhimanayaan waa asagoo kale iska dhumay gabadhii maxay samaysay videogan asma fiirino gabadhii waxay samaynaysaa waa gabadhii oo wiil Western African ah gacmaha ay haystaan ay meel kabaha roolaha oo taayirada leh oo lagu maaragtay lagu faakaysto dadka yaqaan kuwan aqoon maahan dadka yaqaan ay ku raaxaystaan ama ay sportska qayb kamid la dheelayso oo gacmaha hayo hees baa u shidan kulli heesta in ma soo deyn karo laakiin waxa weeyaan soo mar meeshii ka marmay weey heesta baan soo daayay waxa saaran copyright so gabadhaas yaa sababay inay dad kale ajaanib ay raacdiya sababay kii ay raaci lahayd ayaa fariyad bidix ka baxay
kii ay kadib dhiganayd ayaa fariir bidix ka baxay maxay sameynaysaa marka oo ajaanib ay raacay waatana ajaanib la socotaa haye video kale kana aan isla fiirin bal kan laftirkiisa videogan maadaama hees ay saaran tahay oo aan u haysan inaan soo dayno heestaan haddana saa u jeedaan waxay la heesaysaa wiil aan Soomaali ahayn maxaa yeelay way weyday kii Soomaaliga ahaa calmatay way weyday kii Soomaaliga ahaa calmatay fariiro bidix ka bax Soomaalidu maxay tiraahdaa bun hadii la waayo bedelkiisa la helaa kii ay calmatay walaalkeeda markay weyday inay marka balaayo kala raadiso yaa ku kalifay su'aashu waxa yaa ku kalifay way yaa ku kalifay inay umad kala raadiso ma ayada iska doonatay mise lagu kalifay waxaan ognahay hadda bariyahan in baraha bulshada la dhexmarayay wiil darisla la dhaho iyada waxbay uga soo baahatay oo si xun ula dhaqmay oo lacag bay ka cuneen oo maqaayad bay geeyeen oo gabadhii qarash ay geliyeen ad maqlaysa Soomaa marka kii u baahateen hadduu inta lacag geliyo iska dhunto soo marka berrina baahideeda dadka lama aadayso kii ay jeclaatana hadduu iska maaragtay xays noqdo roob xays ah iska da'sado meeluu ka baxay la waayo ninkii ay jeclaatay meeluu ka baxay la waayo oo gabdho islaameed kabaha u qaaday gabdho islaameed qarashkiisii ku qarash galay hadda waxaan ognahay gabar iska dalxiisaysa anagu ma habaarayno waxaan leenahay haddii khayr ugu jirana ilaahay is waafajiyo haddii kale tana maaragtay dee noloshiisa wato laakiin uu kabihii u qaadiyo dabawada gabadhan muxuu kabaha ugu qaadi waayo waa kana gabar umada kaleeto iyo dadyow kale kabihii u qaadiya yaa ugu qaadi karaa kabaha hadday tahay tii soo horreysay laakiin tana ka soo horreysay muxuu tan kabaha ugu qaadi waayo muxuu tana daba socon waayo uu daba socon waayo marka bulsho burburtay marka oo wiilashiina aan la ogeyn kii xoogaa aqligana meel kale ugu ordayo ka tegayo kuwii walaalihiisa kii kalena uu dhunsan yahay oo la arkinba dhammaantoodna ay gabdhihii niyad jebinayaan oo gabdhihii ay ku kalifayaan inay umado kala raacaan ayagu ay sabab u yihiin ma jirto gabar Soomaaliyeed oo gurigooda inta ka soo baxdo umado kale ku darsanaysa ma jirto markay gabadhii aragto in meesha rag isu joogin kuwii ay ku lugoodayna ay aragto say u dhaqmayaan ay kasii socdaan gabadha bilaadan waa qof bilaadanka wuxuu u baahan yahay maaragtay inuu guursado u baahan yahay dadkii gayaankiisa markuu arko lugooyadooda iyo qaabdaradooda iyo khasaaradooda maxaa diidaya marka qofku inuu baahidiisa meelahaas la aado maxaa diidaya hadda gabadhan waxaa laga yaabaa inay hadda aysan weli guursan ay asxaab leedahay laakiin berri markiiba official si aad u aragtaan gabadhiyo degan meel waxaad dhihi doontaan alla maxay ka doonta alla wixii ilaa naag bay ahayd alla kan adinkaa sida ka dhigay adinkaa hallaabay adinka nimankaa weliba yaa hallaabay gabdhuhu aad male gabar kasta oo ajaanib guursato meeshuu doonaa ka imaado ama Africa ka imaado ama Europe ka imaado gabar kasta ajaanib guursato waxaa sabab u ah qof Soomaali ah gabar kasta ajaanib guursato hadda waxaan arkaya cunug waxaan arkay nin tuug ah oo dilaa oo qaatil ah oo laga nacay waddankii uu joogay uu isku qorqoraa naagtiisiyaa laga xooga Soomaaliyaan kusoo daraynaa uu leeyahay muxuu rabaa mataqaanaa haddii lacag ninka la kulmo muxuu rabaa shaqada wala mataqaanaa war gabar Soomaaliya iska guurso gabdhihii Soomaaliya waxay noqdeen wax raqiis ah oo qof kasta qoorta loo geliyo gabar Soomaaliya iska guurso wal ilaa wax kale ma dhihi doono ninka hadduu la kulmo maxaa yeelay video kasta uu soo dhigo wuxuu leeyahay naagtiisiyaa laga xoogay ninkan Soomaali baan ka dhigaynaa kan oo anagu ma dadkan marka u bedelnaa islaamaha ma nimanka gabdhahoodii laga xoogay ama kasoo tagay anagu gabdho free amaan haynaa macnaha hadda gabdho ma lagu leeyahay gabdho ma maqlaysa sheeka gabdhaha 10 maxaa lahayd magaceeda 10 chicken baa gabar lagu guursanaya oo nimanka xabsida ka soo baxa ayaa guursada waxaas oo dhan dad ka gabar Soomaaliyeed nin u tagtay ma jirto waxaas oo dhan nin la ka shaqeynayo wiilal hadda maaragtay Mareykanka xabsiyada ka soo baxa oo markay xabsiyada ka soo baxaan kadib maaragtay community-yaasha ku soo noqdo masaajidada ibaado dhammaantood nin baa inta gacanta soo qabtay gabar Soomaaliyeed u keenay gabdhaha Soomaaliyeed waxay noqdeen wax isku daweeyay noqdeen makanini bay noqdeen isku daweeyay stress la isaga baabi'iyay noqdeen gabdhihii ma waxay noqdeen wax laga tago
ma wax sidii doon laga yeelay noqdeen gabdhihii iyo awlaadii iyo ciyaalkii iyo wixii oo dhan waa may. waxaan rajaynaynaa in dadka soomaalida ah fikirkoodu uu ahaado fikir weyn 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 weyn, wax arka waxna isu sheega. dhalinyarada khaasatan ragga dhunsana runta in loo sheego. runtii maanta ma lihin qoysas la arko ma lihin. waxaan leenahay qoysas qarsoon, secret, qoysas qarsoon, qoys aan la arkayn. ninkii lahaa reerkaan iyo naagtii lahaa reerkaan wada socota. ummadaas adduunkan meel kasoo degtid dadaa ku nool. adduunkan meel kasoo degtid dad baa ku nool. waxaad arkaysaa iyagoo wada socda, iyagoo isla jira. adiga bal dadkan ma waxaa la yidhi dembi baa laydin qoraa haddii laydin arka idinkoo isla socdan. dembi baa laydin qoraa maa la yidhi. dembiilayaala tiin maa la yidhi. dawladaha ay ku nool yihiin baa ku xukumay oo ha is arkinina yidhi. ilaahay maa yidhi kala dhuunta. dhaqankooda maa yidhi kala dhuunta. caqiidadooda iyo diintooda maa tiri kala dhuunta. maxay ku kala dhumanayaan? maxay ku kala dhumanayaan? maxay u kala cararayaan? maxay isu raaci laayihiin? maxay isu gargaari laayihiin? maxay isu caawin laayihiin? maxay fariga faraanta u noqon laayihiin? maxay reerku hooye aabiyi ciyaala loo la-yahay? hooye aabiyi ciyaal wada socda maxaa loo la-yahay? soomaali waa isqabtaayo waa dhaldhalaysaayo waa joogtaayo maxaa loo la-yahay? reer wada socda maxaa loo la-yahay? maxaan isu weydiin lana? maxay isu weydiin lana? maxay aabbayaasha u noqdeen kuwo aan ka warqabin awlaadooda? maxay aabbayaasha u noqdeen kuwo aan awoodin inuu ilmihiisa iyo xaaskiisa isku wato? aan awoodin. war ratiga fiir soomaalida waxaa lagu sheegaa dadka asalkooda horta reebaadiyo ka imaado. meesha doona ku noolaado. adduunka bini-aadanka o dhan waxay ka imaadeen baadiye. ama indha yar ha ahaadaan, ama indha weyn ha ahaadaan, ama kormadow ha ahaadaan, ama korcad ha ahaadaan. baadiye ka wada imaadeen. kulli waa reebaadiye. dadka baadiye ka wada imaadeen. xayawaan ay dhaqdaan. soomaalida xayawaanka geela la yihahday dhaqdaan. xayawaanka geela la yihahdo ratiga hasha iyo caruurteedii iyo ilmihii ay dhashay wuu isku wadaa, wuu ilaaliyaa, wuu daajiyaa. caqligooda xitaa horta soomaalida dee dadkii hore awowayaashana dad wanaagsan bay ahayd. oo hadda aniga waxaan xasuustaa awowgay islaantiisa iyo ilmihiisa isagooda wata. anigu awow u yahayna uu iwato oo ku jiro dad wuu ogaa. hore dadkii hore dad sharafan bay ahayd. dadkii wadanka jooga oo hooyooyinkii iyo aabayaal halaysan kastoo jiraan inta badan dad dee isla socday ahaayeen. laakiin soomaalida ku nool qurba aabayaal ma jiraan. aabe ma jiro. I don't know, nolosha muu la qabsan waayey, nolosha maa ku adkaatay, nolosha musfahmeyn. hadda gabar waxaa jirta laga qaatay, gabar waxaa jirta dhimatay, gabar dhimatay Faransa ku dhimatay, way dhimatay. ilmay ka tagtay, laba cunugay ka tagtay. labadii cunug umad kala qaadanaysa. maxaa yeelay aabihii uma diyaarsana inuu ilmihii xanaaneeyo. uma diyaarsana, maba yaqaanaba. si caano loo siiyo ma yaqaan, si loo goglo ma yaqaan, si dhar loogu nadiifiyo ma yaqaan, si wax loogu kariyo ma yaqaan, si nadaafadooda loogu shaqeeyo ma yaqaan. ilmihii waxba kama yaqaan. asagaa la quudin jira, wax la siin jira. marka dee nin asaga la quudin jira ilmo muxuu ka fahmaa? ilmihii umada kala qaadanaysa. asaga xitaa jaanus ma helayo. ilmihii haddii gabadhi dhimatay ilmihii uu ku ilaaliyo. maxaa yeelay awalba wax jira ma ahayn. qof wuxuu ahaa habeenkii inuu seexda subaxiina ka kaca intuu wax cuni karo cuno. marka aan arrinkan wax ka bedelno, fadlan haddaa ku cusubta youtube channelkayga please subscribe saar youtube channelkayga. intaan video labada kulmi doono sidaas iyo